agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga jamhuuriyadda Somaliland ayaa xadhiga ka jaray xafiis cusub oo ka shaqayn doona isku xidhka ganacsiga iyo maalgashiga ee dalka Somaliland. Musabihi Abdi dalka dhiirigelinaya ganacsigiisa iyo inay maalgashanaba agaasima markaa xafiiskan wuxuu isku xulayaa oo dhiirigelinaya maalgashiga oo aanu ajal uga nahay international company Solas Marine Company iyo Ecom Company oo ganacsigoodii keenaya bartan iyagoo ganacsiga qaar ee Somaliland keenay ganacsiga qaar transit Ethiopia oo dharay ka heleen ku geynaya orana company-gaas oo keenay Somaliland wuxuu soo dhiiranay inuu maalgashado dalka wasaaradda maalgashiga horumarinta maalgashiga dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo asaasay ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in la dhiirigeliyo maalgashiga marka muwaadiniinta gudaha iyo kadibadana la soo jiido marka maalgashi la sameeyo saddex wax inta badan muhiim ah tokood waxa weeyaan wadda kulli shuruuc marka suurtagelinaysan maalgashi la sameeyo talabaadna waxa weeyaan amni inuu waddanka ka jiro nabadgelyo saddexaadna waddanku inuu khayraad leeyahay alxamdulillah inagu saddexdiiba shuruudood baynu leenahay nabadina ilaahay bayna siiyay alxamdulillah khayraad fara badan oo waddanka kulli ku duugan yahay oo ogtiin shuruucna waa la inkastoo qabiy yihiin oo imika aan doonno dib u eegno oo la sii horumariyo marka kor loo qaado si ay u sii dhiirigeliyaan maalgashiyaasha kale oo waddanka iyo kuwa dibadda xafiiskan alkhayraad aad iyo aad baan ugu ogaadeenaa waxaan rajaynayaa in wax weyn ka tiri doono dhanka maalgashiga iyo soo jiida marka maalgashiyaal kale howlaha ganacsiga ku jiraan kulli waa inkastoo wasaaradda ganacsiga gaar u khusayaan iyadana waan dhiirigeliyaan oona bogaadeenaa insha allah waxaana jiri doona sidaa uu ka dhawaajiyay maalgashi fara badan baa waddanka kusoo socda DPL baa hore loogu timi qaar kale fara badan baa soo socda khayraadka waddankeena markaa aad baa loo danaynaya aadna u farbaday inaga markaa maxayna la gudbaa dareer jamhuuriyadda reer Somaliland muwaadiniinteedii nahay waxayna la gudbaa waxa weeyaan inaanu diyaarsano markaa xirfadii ay maalgashiga kaga faa'iideysan lahayn haddii imika warshadu in halkan laga dhiso wajaale oo sida looga shaqeeya baa inaan garanayn waxay iman doonto markaa in ajnabi la keeno ajnabi ka shaqeeyaan marka faa'iidadii noo wada ma lahayd waxa laga yaabaa kala bar inay waddan kale ku noqoto ay qofka ajnabiga ee lacagtii waddankiisa uu ku celinaya marka waxaan u baahannahay xirfadii aan la nimaadno inaan kartidii la nimaadno inaan hal abuurkii la nimaadno markaa maalgashigu markuu noo yimaado aynu haddana kaga sii faa'iidaysan lahayn boqolkiiba marka hore waxaan leenahay horta ilaahay idin barakeeyo dadaalkaa waddaana ilaahay idinku gargaaro waan ku mahadsan yahay agaasimaha maalgashiguna dhiirigelinta dhallinyaradaas dadaashay ee doonaysa inay horumar waddanka gaarsiiyaan waan ku mahadsan yahay maalgashiga midna waa dadkeenna oo waa innaga oo waata madaxweynuhu ku dhawaaqay maanta ee uu lahaa wax soo saarka iyo maalgashiga waddanka ah intii wax soo dhoofinayno ama wax laynoo soo dhoofinayo weli dad jira noqon mayno waa inaynu inagu gacmaheenna wax ku soo saaranaa qaybtaas waa qaybta ka mid ah qaybta labaadna waa qaybta aynu soo jeedinaya caalamka ee wixii maalgashiga ahaa dhul ilaahay khayraad leh oo wanaagsan bayna siiyey waa Saciid Nuux Kibaar Saciid Madoobe telefishinka caalamiga ee Ariel magaala xuduudeedka degmada Togwa Jaale.